xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu eedo culus u jeediyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax xogaye ku-xigeenka dawladda iyo hawada ee xisbiga wadani Jaamac Cabdi Xaaji oo warbaahinta la hadlay waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in shacabka reer Soomaaliland uu maanta gudoomiye u yahay Baashe Maxamed Faarax oo ku sifeeyay in uu ku fashilmay xil askarinimo oo ka ahaa dawladii Maxamed Siyaad Barre oo sida hadalka u dhigay isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri marka hore horta waxaan leeyahay markaan si guud iyagoo dhan aan isku duuduubo oo aan uga hadlo oo nimanyahow gulwadanimadu sidaa ma aha gulwadanimadu waxay leedahay basar iyo asluub ayay leedahay haddii aad gulwadaynaysid sida aanu ka warqabno qolada harti ee xukuumadda kulmiye ku jirta nin deegaankiisii tegi karaa ma jiro nin deegaankiisii ku noqday ma jiro markaan ka hadlo gaar ahaan qolada dhulbahante ka ugu shisheeye ee ka babaxa Hargeysa Laascaanood ma dhaafo Laascaanood buu bari joogaa oo dalxiis u tagaa oo iskaga soo noqdaa marka waxaan leeyahay wadamayahow asluub isku yeela dimuqraadiyadda Soomaaliland ee godka ku dhacday ee haadaanta ka sii lulata dadka godka ku sii ridaya ee ka sii lulaya sii shidaya ee raba dimuqraadiyaddii uu waddanka ku naaloonayay ee muddada dhowr iyo 20 sano uu ku naaloonayay ee uu ku socday ee uu ku hormaray waxaad moodaa inaad god ku sii ridaysaan dadka ugu badan ee sii shidaya inaad ka mid tihiin wadamada xishooda ayaan idin leeyahay dhowr iyo inta Soomaaliland ay dhisnayna Hargeysa waa joogteen wax allaale iyo wax horumar ah aad deegaanadiinii iyo meelaha aad representative ka aad u tihiin ee aad matashaan haddaad xildhibaan tihiin iyo haddaad wasiir tihiin midna ma jirto haddeer waxaad la soo baxdeen hawlo cusub oo gulwadanimo ah waad la soo baxdeen iyo qas iyo qalaanqal inaad ka mid noqotaan marka nimayo waxay oran lahaa horta marka idinku isku duuban gulwadanimada daaya horumarka iyo jiritaanka Soomaaliland inta la idin kala wareegaya dhalinyarada deegaamadaas ay idin kala wareegaya ee new breed-ka ah ee siyaasadda niyadda u haya ee dadka u shaqeynaya inta idin kala wareegayaan dad wasiiratihiin iyo dad xildhibaan tihiinba waddanka burburinaya si nabadgelyo ah xilalka ugu tago oo u wareejiyo oo u nas taasaan kale talabaad qabeen aan ka hadlo waxa weeye Baashe waa ninka ugu weyn nimanka gulwadayaasha harti aan ka hadlay ninka ugu weyn weeye uguna title sareey Soomaalidu waxay ku maamaadaa ninkii aad u dirsan weydo begeel u dirsata ninka ariga lagala quusto ayay geel u dirsata Baashe xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre askari buu ka noqday askarinimadii baa lagu aamini waayay maanta ninkii askarinimada lagu aamini waayay baa reer Soomaaliland ay ka dhigteen ra'iisul baarlamaan horta waa wax laga yeeso askarinimadii markii laga eriyayna wuxuu tagay Nairobi sida anigu aan warka ku hayo ee xaqiiqdeedana aan hayo walaalkii oo ka weyn oo ganacsada waa u yeeray xogaa lacag ayuu dhiibay lacagtina waa khasaariyay ganacsigiina failure buu ku noqday maanta ninkii nooca ahaa reer Soomaaliland ay ninkii ra'iisul baarlamaanka ee baarlamaanka ugu sareeyay ay ka dhigteen oo wax la weydiinaya Baashe waxaan ku leeyahay iska naso sida aad meesha ku timi ee aad xildhibaanka ku noqotay waynu ognahay sida aad ra'iisul baarlamaanka ku noqotay oo raadkeedu uu qoyan yahay iyo sida aad ku heshay iyo boobka aad ku heshay waynu ognahay markii hore xildhibaankii waxaad ku heshay $100 baad ku heshay adaaba ka shaqeeya oo dadka ugu shaqeeyo yiraahda xildhibaannimadan waxaan ugu yimi $100 wada waana la igu soo qasb kadibna ra'iisul baarlamaan baad noqotay ra'iisul baarlamaanka disaad ku timi waynu ognahayo Soomaalidu waxay ku maamaadaa hal booliin inay xalaal ma dhasho kursiga ra'iisul baarlamaanka aad ku fadhidid gacantaagii aad ku heshay ee khaldanaa ee wadani uu ka tanaasulay wad la socotaa marka sad maanta qas iyo qalaanqal iyo rabshad iyo cusboonaysiin golaha wakiilada 15 sano meesha fadhiyay aad adigu hormood ka tahay marka niyo Baashe waxaan oran lahaa
adeer xishoodo iska naso oo ya daadii aad masaajidka geli lahayd baad ku jirtaa aad iska cibaadaysanaa nimanka odayaasha halkaas kaga baxaya